حوله سائل كان شيخ ملو استاغي كرا معلمك marka uu kalaaska ama fasalka soo galo labaan u kala qaadaynaa waa mid koobaad ee horta maamulka waxbarashada iyo macalinka inay arinta nidaam ka dhigaan oo amraan oo jeclaadaan oo kii loo istaagayayna jeclaado hadii loo istaagi waayana uu xanaaqo ama ardadaba uu ciqaabo وارنا شرعه ku banaanay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiidka ay soo saareen Imam Ahmad Abu Daawud iyo Tirmidhi min xadiith Muawiyah ibn Abi Sufyan ay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar ruuxi jecel ama jeclaada in raggu isu taagaan oo loo istaago ruuxii jecel naarta boosku ka gali lahaa hadiyaarsado nabi sallallahu alayhi wasallam yaani haw diyaar garoobo meeshuu naarta ka gali lahaa marka adiga inaad jeclaato in lagu istaago dadku ku is istaagaan ama macallin ahaw ama madax ahaw ama sheekh ahaw in lagu istaagaba hadaad jeclaato waa ithmi iyo dambi weyn ma la ogola waa qodob sidaas daraadeed baa saxaabadii nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ayagoo rasuulkeena aad u jeclaa mayna u istaagi jir macallinkii ugu weynaa isagu ah Imam Ahmad iyo Tirmidhi waxay soo saareen bi isnaadin sahih Anas ibn Malik waxay ka warinayaan wuxuu leeyahay lam yakun shakhsun ahabba ilayhim saxaabadu ka wada min rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam saxaabadii nabiga cid ka jeclayd ma jiro nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam عند النبي محمد وجه الخلق صحابتي سيحايا هذا وكانوا لا يقومون له إذا دخل عليهم ما ينو يستاجي جري مركو صقله لما يعلمون من كراهيته لذلك معايا لوحي أوجايين إنه النبي كهنا صلى الله عليه وسلم إنه سنشعلين بيك أوجايين كهالشدة يكو جين النبي كهنا يو سنشعلين درتد بينه يستاجي جري طيب حديث كاسي لبدا حديث waxay tilmaamayaan in caruurta lagu tarbiyeeyo iyo dadka in loo istaago muxuu ahaay kaligood ma yahay madaxda iyo macallimiinta iyo waarin khilaafsan hadigi iyo sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam بعض اهل العلم waxay ka soo reebaan masaa'il dhowra oo ka mid tahay ruux safar ka yimid oo loo istaagay si loo salaamo ama loo gacan qaado ama loo qorqoristo loo mucaanaqeeyo ruux muddo dheer maqnaa oo kale qaarkood waxay ka soo reebaan ilmuhu inuu waalidkii u istaago kale oo ikraam ah weynayn iyo waxa kala ikraam baa kala nooc sharaf iyo qadarin ah arintaasina way sugan tahay oo mesela markii loogu bishaareeyay ninkii la dhihi jiray Ka'b ibn Malik bishaaradiisi markay timid oo konton bari la go'doomiyay isagii saaxiibadii kadibna ilaahay ka toobad aqbalo bishaaradii timid waa kii ay saxaabadu u soo kala ordeen in bishaarada la soo gaarsiiyo ninkii ugu horeeyay bishaarada uu keenay wuxuu noqday Talha ibn Ubaydillah markuu bishaareeyayna wuu gacan qaaday wuu istaagay وهكذا يعني markay toobadii soo degtay baan dhihi lahaa oo uu yimid ninkii uu istaagay wuxuu ahaa Talha ibn Ubaydillah intuu istaagay buu gacan qaaday kadibna uu tahniyaday marka yani xaalad noocaas oo kale way soo arooraysaa tan waalidkoo kale waxa ku iimaanaysa xadiidkii Aisha radhiyallahu ta'ala anha waxay leedahay Fatima gabadhii nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd nabigu markuu soo galo sallallahu alayhi wasallam uu istaagi jirtay markaasay gacanta qaban jirtay way dhunkan jirtay way fadhiisiin jirtay meeshuu iyadu fadhiday intay ka kacday fadhiisiin jirtay way dhunkan jirtay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nabigu fadhiya haday soo gashana iyadu kor ka timaadana nabigu waa uu istaagi jiray markaasuu gacanta qaban jiray waa dhunkan jiray
وفريسين جري ماشو يسوي فدي وفريسين جري صلى الله عليه وسلم حديث كاسي وسجن هاي وسجن أبو داود الترمذي النسائي صوصاري وحديث صحيح هو المهم علماء وحي كسر ريبان وحي نوع احترام يقدرينه والد إيو روح احترام لأوكلته إيو لكن هذا تعظيم إيو إسكو قصبت إيو كلو استاغ يو على هذا يقعدو مركز النصوص توحا كموقتا إنا الله أقولي تربية داسي مركا وتربية دنك كلا مركا لغا فيريانا إني أرددو استاغان وتربية كسو جيدا انت بدن رجال بيتك كسو جيدا ما أها دقنكي مسلمين تلهان جيرين إن مشايخ لو استاغو مركي درسيغو بلابانا يو الله كعو مركي سوغلا لو استاغو ما جيرين معلمين تلو ما استاغي جير لكن ودقن نغا يميد قالداس نغا يميد والله أعلم أو سائلك الله السلام عليكم شيخ محمد قبضنا ميي وعدين كرتا رجع أما ما أقول نقول كرتا شيخات والسلام هوري أنت أنا نكبحن الإمام النووي عليه رحمة الله وحكوسة قورنا يا روضة الطالب كا وحوليه هاي قالوا العلم قارباتش على استي عدي أما علمي أما الصلاح أما والد ولدكي سوي استاغية أو بر إيه إكرام إيه وينين إيه استوستوس إيه حوغا أين كوتشرينا الإمام النووي جمهور السلف والخلف بكسو قورنا لكن وحوليه هاي روح أساق السوق ليه فيحرم عليه أن يحب القيام أساق كان ربائن لو استاغو أصلهان أساقو إنو جعلاده أما دادك أمرو أما كشقيو حرام بيك تاهو سلد وحوي أساقو كشقينين أين وينين أهين احترام أهان هدو مدن يهي أما والد يهي أما روح شرف لأو يهي ما لو استاقي كرا دودو هالكاسي جوجتا أما هذين نقطة أنا ربي هالي استاقي هديك الأرض وعقابة يا أما محو أهي تاسوا مداسوا يدا حديث كان نسكوا نعم سؤال كلا دانوني ما عندك جواب تيدا قبل الشيخ خدم النقون كرتا والرجع حنبري كرتا جوابته وحويان أصل كها ويبنانتها أصلهان لأن الصحابيات كي النبي صلى الله عليه وسلم دين تكبرتي دين تمركي فافينا يان ودتك جارسينا يان رجع دمر بوي كقادن شيء زوجاتك نبيك حاسسك علمك أي نبيك كربين دمر كليه كما قادنين رجع دمر بوي كقادن شيء لكن من وراء حجاب هذه شروط يدل هلو دب ملاين أي دمركو أي رجع دين تبرانو دمركو هذا دين تكون دمان رجع إن لقى أخرستو يدت رجع بران واحد وملها أصلها ويبنانتها لكن وإن لهلا شروط ضوابط بعلماء أردقان وحاكم إذا إن حاجة مادو كينيسة وإن حجاب جراء وراء حجاب أي مركز درسي كسيسو إن الصوت كذا أين خضوعن فلا تخضعن بالقول هذا الدبع سن وأرضض وقلبي قوض صامينها يوميلك لأقول حيني وإننا ماشي إيماني وإننا لبكي لبضوض عليسنين أرضي يا شيخ الديس وإننا مالكو عليسنين وإن خلوة إيمان وإن فتنة آمن لقيه سلاداسي انت هدي لهلو لا مانع وحين كوصل ليسنتها مسألة اللي هذا الصوت كالضمركو مع عورة مس عورة ما سيد الراجح الجمهور تقبلنا صوت كالضمر كوني كلي أهانتيسه oo aan xarxardid iyo qurqurxin iyo khuduuc ku jirin keligi awra ma saasa sax wana sida jumhuurtu ay qabaan hadii marka dawaabida la helo dhimale waqtigi nabiga daashiba sallallahu alayhi waqtigiisiba saxaabiyaadku ragga waxbay bari jireen shuyuukhdooda kamid ah hatta xilligii taabiciinta hatta gadaal dambe dumar badan baa jiro rag culimo oo wax ka baran jireen marka dawaabida in la helo baa muhiim ah wallahu a'lam waxa ay gabadhani leedahay gabadhani waa min yaro weeye waxay leedahay assalaamu calaykum ninkayga xaas kale ayuu leeyahay kadibna
yani min weyntiiba maseeraysa kadibna way maseertay aniga ayuu ifuray waa isoo celiyey si uu naagtiisa ugu qanciyo inuu ifuray waxaan kala joognaa laba wadan aniga iyo xaaska kale arrintaasi wax dhib ma ku jiraa macnaa in la qariyo masalan horta haweenayda inay masayrto waa iska dabeecad waa ilaahay wuxuu ku abuuray inkastoo isku in aan laga siinin ay ku kala xoog badan yihiin marka masayrka aan xuduudda dhaafin oo aan xadda gudbin oo waalanin oo aan shareecada dardarin garawshuu leeyahay laakiin midka shareecada gudbay oo aan xuduudda lahayn kaasi garawsho ma leh in la xakameeyo u baahan yahay waxaa ka mid a xuduudda tilowgeeda waxaa ka mid inay haweenta lala qabo ee lala guursaday ay dalbato midda lala guursaday in la furo waa xaaraan qaطci ah waa iyadu hadday dhaqmayso ha dhaqanto haddayna dhaqaal rabinna hallay furo ha tidhaahdo laakiin gabadhaa kale la guursaday inay tidhaahdo meesha dhaafi ama ay tidhaahdo amaanaa tegi ama iyadaa tegi warkaasi war saxsan maaha nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi xadiidka abu hurayra walaa tas'al ilmar'atu talaaqa ukhtiha litakfa'a maa fii inaa'iha haweenaydu yaysan dangaladeeda lala qabo furitaankeeda yayna dalbanin si ay weelkeeda waxa ku jira u gedisato maxaa laga wadaa waa hadal macno weyn ku fadhiya wax badan oo ay haysatay say iyada ugu soo wareegaan furitaankeeda yaynan dalbanin xadiidka bukhaari iyo keyrkii baa soo saaray arrintaasi marka waa arrin dembi ah gabdhaha masayreen waxaa loo baahan yahay inayna arrintaa iyada ah aynan lafgelin oo iska ilaaliyaan shareecada inaynan muxuuha ay ku xadgudbin ninka arrinkaa laga dalbanayana inuu haweenaydiisa ku raaco iyaduna waa xaaraan lianna waxa weeye waa taacatun fii macsiya nebiguna wuxuu uhi sal alla alay wasalam inama taacatu fi lmacruuf waxa dadka lagu ateeco lagaga amar qaato waa wixii taaca ah adigaa oday ah adaaga tanna qabay tanna guursaday haddii markii horeba aada isla maamuli karinna inaad bannaankaaga joogtay ah soo saas ma haddad raganimadeedii lahayn fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidata adoo saaxibu waaxida ah baad waxoogaa tilaabo qaaday oo loo baahnayn markaadir haddaadan isla maamuli karayn gabdhaha islaamka hallu goylina midaada isaga ekow haddaad u aragtay inaad maamuli karayso haddaad tilaabo qaado adiga haddaad culayskii wadi weydo oo ama dhaqaale la'aan ama duruuf kaleeto aad u aragto inaad isfududayso sharcan waa masale kale laakiin islaam baa i bareeshar garaysay oo fur baa la yidhiyo waa laygu masayray kadibna waan ka yeelay oo maxaad gabadha u lugoynaysa marka horeba waa masale khalada waa wadaadka iyo ninka warka halkaa marayna asagana waxbaa ka khaldan ma saxsana masalada xigtaayi waxay tahay hadduu yaro xeeladaysto oo yaro farsamaysto oo intuu furo soo celiyo soo celinteedana uu qarsado see waxay yihiin hadda waa nin tabar darayna dhib ma leh ha iska farsamaysto nin tabar waayey soo inuu qaab wuxuu xalliyo maaha kaasoo kale waxaa iska qarqarsado dhib ma leh insha allah wallahu aclam asalaamu calaykum ma lagu tukan karaa saf uu tiir kala gooyey masaladaasi way soo noqnoqotay waxaan u markii saddexaad inay tahay waan ka hadalnay markay ugu yar tahay safafka tiirarku kala gooynayaan in lagu tukadaayey markay ugu yar tahay karaaha ku jirta xadiis baana ku soo aroortay uu ka mid yahay cabdilxamiid ibnu maxamuud baa wuxuu leeyahay waxaan ku daba tukannay nin madaxoo ka mida madaxdeennii markaasaa dadkoo badnaa darteed baa waxay nagu qasbeen
inaanu ku tukanno laba tiir dhexdood fajacala anasu yata'akhar anas oo marka meesha joogo saxaabi ahaa ayaa wuxuu bilaabay buu yidhi marka inuu gadaal u baxo meeshii tiirarkii dhexdooda safkii ahaa buu gadaal uga baxay markaan tukannoon salaadii ka baxnay baa anas wuxuu yidhi kunnaa nattaqii haada calaa cahdi rasuulillahi sal alla alay wasalam waqtigii nebi maxamed sal alla alay wasalam uu noolaa tiirarka dhexdooda inaan ku tukanno waa iska ilaalin jirnay waxaa soo saaray abu daawuud nasaa'i tirmidi xaakim iyo axmed waana xadiis saxiixa tirmidi baa saxiixinaya xaakim dahabi ibnu xajar sheekh albaani iyo keyrkood shaahid kaluu leeyahay min xadiidi mucaawiyat bni qura wuxuu leeyahay isaguna kunnaa nunha an nasufa bayna asawaari calaa cahdi rasuuli llahi sal alla alay wasalam wa nutradu canha tardaa inaannu tiirarka dhexdooda ku safanno waqtigii nebiga sal alla alay wasalam waana laga reebi jiray waana nalaga eryi jiray buuhi eryid waana la fiijin jiray markii la arko annagoo tiirarka dhexdooda ku safanay xadiidkan ibn maajah iyo xaakim iyo abu daawuud at-tayaalisi yaa soo saaray xaakim wuxuu leeyahay saxiixul isnaad dahabina wuxuu leeyahay uu ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu leeyahay waa xasan almuhim xadiistaasi waxay tilmaamaysaa inaan tiirarka dhexdooda lagu tukan culimadu qolaba waxbay ku cileeyaan qole waxay leeyihiin jinka muslimiinta ku tukada oo saasaa loo diiday daliil looma hayo taas qaar waxay leeyihiin safkay kala goynayaan oo saasaa loo diiday taasaana sax laana safku inuu xidhiidhsanaadaa la rabaa saf kala go-an lama rabo man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah ruuxii saf xidhiidhiya allah xidhiidhiya ruuxii saf kala gooyana allah kala gooya marka safkii kala go-ayaa la diiday waxay u bannaan tahay ciddii meel kala weyda ciddii weyda saf isku xidhan oon tiirar u dhaxaynin ciddii weydaay markaa kaa tiirarku u dhaxeeyuu ku tukanayaa jamaacadu beddelkay dhaafi lahayd meeshaasuu ku salaadaya oo salaaddii jamaacada kaga xidhanaya laakiin ciddii heli karta saf aan tiirar lahayn waa inuu isaga aado sidaa anasba sameeyo gadaal uu ugu gurtay oo tiirarkii uu gadaal uga gurtay kadibna uu xadiiskaa keenay saasaa habboon wallahu aclam saa'iladan waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh cunto jidhka ma la marsan karaa si aan isugu qurxiyo asal ahaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa dhulka korkiisa yaalaay waa inoo banneeyey huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican waxaa dhulka korkiisa yaalloo dhan ilaahay idinkuu idiin abuuray wey wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican min idinkaa laydiin sakhiray wixii dhulka korkiisa yaalloo dhan xataa samaawaadka ilaahay inagu inoo sakhiray tabaaraka wa tacaala waxyaalahaa yaalaayey cunto wax la isku qurxiyo wax la isticmaalo wax lagu labisto waa mubaaxaadka ilaahay inoo banneeyey bay ka mid tahay cuntadii la cunayey haddii wax ka mida loo isticmaalo in la isku qurxiyo sharcan wax diidaya ma jiro wax baasa ma leh waa haddii uu yahay isqurxintu midii shareecada waafaqsanayd laana waxaa jirta isqurxin shareecada khilaafsan baa jirta isqurxintuna waa maqsad ka mida maqaasida shareecada ruuxu inuu isqurxiyo quruxsanaado oo muxuu ahay jamaalka raadiyo oo wixii ilaahay u banneeyey isticmaalo waa yani mataalibta shareecada ka mida nabigeenna sal alla alay wasallam waa kii yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa quruxsan yahay quruxdana waa jecel yahay marka khaasatan dumarka oo iyaga loo ogolaaday waxyaalo fara badan oo baabka ziinada iyo isqurxinta oon ragga loo ogolaan dahabka iyo xariirta waxyaalo badan loo ogolaaday wax diidahaya ma jiro sharti waxa weeye inuusan jirin israaf iyo xadgudub laakiin culimo uu ka mid yahay sheekh ibnu cuthaymiin iyo keyrkii waxay leeyihiin maadaama ay cunto tahay shaygii cunto ahaanna loogu baahan yahay sida fiican waxay leeyihiin waxyaalo kale isku qurxinta in laga raadiyaa fiican waay ee ma aha waa xaaraan marka haddii mawaad tajmiil iyo isqurxin ah laga sameeyo
waxyaalo cuntooyin ah ama toosba la isugu qurxiyo dhib ma laha wax sharcan diidahaya ma uu jiro wallahu a'lam saa'ilkan waxaan ahaa shaqaale muddo 5 sano ah haddii shaqada la iga ceeriyo bilaa dembi wax xuquuq ah miyaan ku sheegan karaa shirkadaas oo aan ahayn mushaharkayga asal ahaan ruuxa shaqaalaha ah waxa uu leeyahay oo kaliya waa mushaharkiisa haddii camalkii shaqada laga eriyona laga qaado ama laga eriyo xaqiisii oo mushaharkii aan buu leeyahay allahumma markii la shaqaaleynay haddii shardi lala galay mushaharka wax ka siyaasana ama curfi ahaanba ay uga jirto wadanka iyo dalka ay uga jirto shaqaaluhu inay leeyihiin xuquuq marka shaqada laga saarayo ama shaqada ay ka tagayaan haddii nidaamka wadanka ka jirto curfiga dhaqanku uu xuquuq siinayo waxa weeyaan al-mashruutu shartan ama al-ma'ruufu urfan kal-mashruuti shartan wixii dhaqan ahaan loogu dhaqmo wax lagu wada hadlayo kale uu ka dhigay marka haddii markii lagu shaqaaleynayay heshiis gooniyo lagula galay oo mushaharkaaga ka siyaasanna wixii lagula galay baad leedahay almuslimuuna ala shuruutihim wa الحقوق عند يعني هاي مقاطع الحقوق عند الشروط هذا الكي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه marka waxa lagu heshiiyo haduu jiro waa leedahay wax nidaamkii curfiga iyo dhaqanka wadanka ka jira uu ku siinayo haduu jiro waa leedahay labada midna haduusan jirin mushaharkaagi wax ka badan mali shaqo kala raadso wallahu a'lam